wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland mudane Saacad Cali Shire ayaa golaha wakiilada Soomaaliland warbixin ka siiyay socdaal dhawaan isaga iyo wafdi uu hogaaminaya ay ku tageen wadanka Imaaraadka kadib markii shirgudoonka golaha wakiilada Soomaaliland uu wasiirka ka dalbaday in uu warbixin ka siiyo mudanayaasha kuna soo dhaweeyay madasha kadib markii lagu marti qaaday mudane Saacad Cali Shire waxa uu sheegay in wafdiga Imaaraadka tagay uu ka koobnaa 7 xubnood kamid ah xukuumadda Soomaaliland iyo 3 sharci yaqaan oo madax banaan waxaana xusay in magaalada Dubai ay kulan kula yeesheen 2 wafdi oo ka socday dawladda Itoobiya iyo shirkadda DP World ujeedada kulankan xukuumad ahaan aanu ka lahayn waxa uu yiri wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland in aanu la hadalno kala saxiixanana 2 heshiis waa ka koobaade in heshiis 3 geesood ah oo ku saabsan wada lahaanshaha shirkadda dekadda DP World Berbera la yiraahdo oo ay ku bohoobeen Soomaaliland Itoobiya iyo shirkadda DP World aanu kala saxiixano heshiiska labaadna waxa uu noqonayaa heshiis 2 geesood ah oo la xidhiidha aaga xorta ah ee Free Zone loo yaqaano oo ay kala saxiixdeen dawladda Soomaaliland iyo shirkadda DP World waxaana wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland geesta kale uu ka warbixiyay sida loo kala leeyahay saamiga shirkadda ee ka dhaxeeya Soomaaliland Itoobiya iyo shirkadda DP World boqolkiiba 51 waxa iska leh ayuu shirkadda DP World boqolkiiba 30 waxa iska leh dawladda Soomaaliland halka dawladda Itoobiya ay iska leedahay boqolkiiba 19 wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland mudane Saacad Cali Shire isagoo warbixintiisa sii wata waxa uu ku dheeraaday ahmiyadda heshiiskan uu leeyahay Soomaaliland iyo sida aanu uga dawanayn heshiiskani heshiisyadii hore ee Soomaaliland ay gali jirtay haddii markii hore aynu ahayn DP World iyo Soomaaliland waxaynu uga baahanay Itoobiya waxaynu uga baahanay 2 shay mid waxa weeye waa maalgashi midna waxa weeye waa macaamiil xagga maalgashiga waxa Itoobiya maalgashanaysa saamiga wixii kaga soo hagaaga maalgashigii guud ee ku baxayay fidinta iyo ballaarinta dekadda oo ahaa 442 milyan taamcineedu waxa weeye waxay maalgashanayaan qadar gaaraya qiyaastii ilaa 80 milyan oo dollar dhinaca kalena mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland ee fadhigaasi ka soo xaadiray ayaa wasiirka arrimaha dibadda su'aalo tiradoodu ay gaarayso ilaa 20 halkaasi ku weydiiyay kuwaasi oo la xidhiidha heshiiska 3 geesoodka ah ee shirkadda DP World Soomaaliland iyo dawladda Itoobiya waxaana wasiirku jawaab ka bixiyay dhammaanba su'aalahaasi